بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخيارتا بفريضة يكون في رسم دونا وإن سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحرنا إن أنت كذا حضرنا أفر شيء إذا خصو كوبو وحن شرح دونا بوق وقرن سي قرآن كوقرن يحيي kaasoo una dib badan ay ku qabaan dadka quraanka baranaya maanta iyo kuwii hore u bartayba in la baray buuga in quraanka la jaan qaadaynin dib aan ka sharxi doonaa insha Allah oo ilmihi ay quraanka akhrin la yihiin in kastoo macallimiin badan aaminsan yihiin ilmuhu ka yaqaanaan lama rabo waxaan ku xijin doonaa la dhaqanka ilmaha wax barayno waxay u baahan yihiin la dhaqano oo dhaqan wanaagsan tusno si diinta u jeclaadaan oo quraanka ugu soo dhawaadaan waxaan sheegi doonaa sababaha ilmuhu quraanka ku nacaan waxaan haynaa North America iyo Europe ilmihi markay yarar yihiin wala bushgarana wala riixaya laakiin markay xogaa madax soo qaadaan quraanka way diidayaan markay dugsiga loo wado in god qaakhir la wada moodaa sabab baa jirta macallimiintii waalidkana mas'uulka waa sheegi doonaa insha Allah lama afarna waxaan u dhamaysin doonaa maxaa la gudboon waalidiinta iyo macallimiinta waxaan sameyn doonaa insha Allah buuga ma sharxi doonaa loo yaqaano tashiilu qiraa'ati alqur'aan waa buug aad u yar xaqiiqatan ilmuhu wax yar ku baran karo qofka weyn oo quraan ka dhigtay u baahan yahay macallimiintu u baahan yihiin maxaa uga baahan tihiin waa arki doontaan insha Allah waxa dhacday hadda ka hor nin baan dhaqtar u raacay indhaha xanuunayeen ninkii dhaqtarkii ku dhahay indhaha leeyahay siri ahayd dhaqtarku wuxuu yiri madaxa tus madaxu fiirshay wixii madaxa wasaq leh ana waxaan ku yiri marka ma la calaaqa been raas wal ayn maxay saga jira sheekh marka indhaha xanuun maxamed ka galay wixii madaxa wasaq leh saas u dhahaa isoo taabtaa maxaan ka wadaa qof meel ka jiran baa meel kale ka daaweynaa ilmo fara badan maanta quraanka la karsiin leeyahay wax aan quraanka la jaan qaadayn baa la baray ilmo badan markay soo weynaadeen quraanka akhri leeyahay oo madaxa dhahaya dhibaato waxa ka heleen waxyaalihii ay isticmaal lahayn baysiga aha baa ka maqan waxa soo maanta inta doona insha Allah laakiin 5 daqiiqo buugan dul maraya muxuu ka kooban yahay inta tagi doona insha Allah waan baan intu sinaya buugan waxa la yiraahdaa tashiilu qiraa'ati alqur'aan wuxuu ka koobnaan doonaa haddaan ka bilaabo introduction-ka halkan waa detailska haddii buugan loo baahdo bari ka maalin meel kasta uu yaalla xaqiiqatan waxaan rabaa in macallin ha ahaado waalid ha ahaado qofkii u baahda inuu si sahlan ku heli karo insha Allah waxaan ku xigi doonaa tusaale macallimiinta iyo waalidiinta wala leeyahay buugan 10 walbaale 10 ku furo ka boodin dib aan u soo laaban doonaa sharxi doonaa insha Allah ku soo laaban doonaa halkan waxa ku yaala alphabetka ama wax loo yaqaan xuruful hija ka bacdina waxaan sheegi doonaa waxyaalaha hadda meesha ka aragtaan ay kamid tahay in ku aragtaan yaan dhib lahayn waxaan qoojinaa yaay hoos ku labalay waxa aragtaan xaraf kale to aan buugta carabiga badan laga helin inta ku yaala waxaan maxay yihiin waa sharxi doonaa insha Allah hal baan dul istaagi doonaa insha Allah halkan waxa la keenay xarfiyo la isku dhaxyaaciyay oo ay ku jiraan qaar aan meesha ku jirin awal hore laakiin hadda lagu soo daray waxaan ku xigi doonaa xarfihii oo yar weyn la isku hoos qoray ilaa quraanku xarfahaas kuma qorno kuwan hoos ku qoray yararka waxaan ku xigi doonaa insha Allah xarfihii oo isbedelay hadaa hal alif taqaanay hal alif daa qoonjitay kan waa alif kan waa alif kan waa alif kan waa alif kan hadaa iyo waa aqoon jirtay meeshan yaana maaha waana maaha kana la maaha waa alif waxdan waa alif insha Allah see ku noqdeen xagee laga keenay quraan xaq soo galaan waa tusinaya insha Allah hal baa dul taagi doona insha Allah xarfihi markaas u socon doonaan way isbedelayaan xarfahaas isku bedeladna qofku aqoonin inuu quraan akhriyo waa hameenki xalay tagay weeyaan okay alif gaab ama hamzo baan aqoon jirnay saan u qoran kana waa hamza alif ma kana waa hamza kale kana waa hamza kana waa maana waa hamza kana waa hamza kana waa hamza kale waxaasna waa hamza loo yaqaana quraanka soo galaan xagee ka helaya si quraanka u soo galaan wuu kala shawyo insha Allah ku tusin doona xarfiyo la isku dhaqasay qofka duu soo bartay waxaan rabaa inaan testin kaga qaadno halkaan ama imtixaan kaga qaadno horaan socon doona insha Allah quraanka waxa soo gala xarakaadka kitaabka badankooda intii soo galaan halkaan ku yaalaan ana wadan Soomaaliyeed saddexdaana ka naqaana ayagana magaca Soomaaliya u naqaana laakiin maxay tahay in la barto oo qofku inuu akhriyo ay tahay waa inuu xarfahan calaamaadka dhan yaqaan wax waa shaqalka wax loo yaqaan ama shakliga ama xarakaadka aw sarto ama ingiriisiga vowels ingiriis shaqata okay marka xarfahan qofka intaan aqoonin inuu quraan akhriyo waa hameenka xalay tagay see ku baran kara kullidu kugu yaalaan magacyashooda oo ku hor yaalaan mid kasta waa lagu hor qoraa okay meel dheer marka doonayso insha Allah
حاجة قرآن كسر جران وهنقول ما نعرفين هل بندول سايدونا إن شاء الله هل كان أخويا لا وحلا قنشنا كردو أما فتحة وعربي لده أما دام خش أردو وحلا يغنى زر مركا أما زبر وحصلنا لغة الاستعمال ويان قفنا نلعبكم معها لكن قرآن وحلا يغنى حركات سماعية ليه هل كان خصيص بأخويا لا هل كان أخويا لا ضمادي قلت أخويا لا لاين كاست بيش كاست لاين باشيء جيا وحنا لو طاقة يصير لو واقع وأدو سهلين هاي هذا هرأسي سعودو حرفيا ولا سود حق صيب عند أخويا اللي دوانا أو أو بعد بوسي عم أقول ترى في الكرة الهوس لبي لكن الكرة الهوس لبي وكهل دوانا إن شاء الله دي بدنا نصير لابتو saas xarfi u qoran yihiin wax badan wada arki doontaan yaan dhibca lahayn quraan meesha ka buuxda maxaa yaa dhibcaha looga qaaday dambiga gashan muxuu yahay wana show insha Allah waa ku tusin doona adoo ka caajisaan fiirsatid laba kordhig ama fatxatayn inta kugu yaalan kasartaynki ama laba hoosigi damataynki asoo la isku dhax qasay inta ku yaala laba kordhig iyo laba hoosigi laba godniinki horaan si socon doona halkan waxa ku yaala ab alif waxa loo aqoon jiray dadka quraanka Soomaaliga ku soo bartaan wax ku dhigtay waxa ku sii hoos xigi doona ab alif marka soo gaartay halkan waa isbedelay oo meesha qalad waxba ku jira dadka ay qaarkood qalad mooy doonaan qalad ma aha al alif baa ku xigi doona halkan ku xiga alif dheer alif waxaan arnaa wax haraka lahayn abay alif maxaa looga qaaday waa su'aal soo gali karta meesha waa lagu sheegi doonaa insha Allah yaaba halkan timid dhibcana ma laha harakana ma laha bismillaahir rahmaanir rahiim maxaa laga waday wana show you insha Allah halkan waa baa soo galay oo buu laakiin saana aqoon jirnay waan quraan dhigan jirnay kana ma la qori jirin ba ama soo imtixaan la qori jiray kana calama saan la saari jiray laakiin maxaa maanta looga tagay we'll see insha Allah waxaan idin dhahayo buugaag baan la baraa aan quraanka la jaan qaadaynin saarkaysan wowgi waxa ma saarna alif ka dambeeya waxa la saaraa sukuun sida dadkan u yaqaan ama reeb laakiin calaamadan horta reeb ma tahay waa su'aal weyn waa su'aal daawo Soomaali wadi jirin marka waa inaad fahantaan ma waxaan mota sukuun tamsa ma aha dib aan wax ku soo laaban doona insha Allah wowgiina waxa lama saarin wada aragtaan sadan waa laga boodiyo Soomaalitan waan ka socon doonaa insha Allah waxa ku xigi doona anoo wadaan aan Soomaalina ceema hadaan Soomaalinahay moogta anoo Soomaaliland ku hadalna Carabi kuma hadalno marka maadaama Soomaalinahay quraanka wuxuu noo leeyahay Carabi wuxuu noo leeyahay xarfa gaagaaban alif ba ta ta laga ma Carabi dheen ma dhigi ba ta ta ba waan tiraahdaa laakiin dad ba tiraahdaa waxay dheen faraha la garaaya marka si loo tusiyo macallimiinta iyo ardadaba xarfuhu insan ka dheer original xarfku wuxuu ahaan jiray san ألف باء تاء لكن ما دام باء تجويد وحلو آخريه لا حركة لما حركة قدام شغل قدام لما آخريه باء من دحوله باء تاء خي إن ما كان داير إشباع خدت مدفوع التي سنوه هلي كرتا باء تراجد إن باء تراجد هلي كرتا لكن باء مجرته تاء أنا مجرته خي جيم أما جين من المجرو خي سأل الله واقع وتراجد وحنا سودي دونا إن فيديو ده حق الشو دقيقة قادم دونا إن شاء الله إن تسيو دعوتان سي أي معقول نقطة إن الله سبحانه دواق برنامج سيشن دواقة مركا وكا عاون دونا حرفها أكو دواقة سي أقرأيهن حرف كوسكو هوس قران هل كان واحد لكن إي أو دي هرا برسول الدري هذا هرا سي سعودو أنت وحكي الله أي ألف خلاص يا ولا تنسخون بهذا الصار لكن وليد بعملها واحد يا دي بعمل لوجا قاضي أنا ويا بنا لكن واحد دون إن شاء الله you'll see halkan alif baa ku yaala sanad wadataan oo sukuun buu haystaa iyada hore sukuun bay haysatay laakiin waxaan soo maray maanta iyo alif iyo waan sukuun lahayn maxaa looga qaaday kuwaana loo siiyay waa su'aal da'weyn laakiin waan sheegi doonaa insha Allah okay hadii 10ka kooytuna la soo gaaray waxa lagu soo celishay wixii hore aan soo marnay حقيقة ريال بعض الله صعنية هذا كسي جدب ضمتين على سوق جاري يكسر سود حقصا هل كان وحال السوق اللي فتحتين كي وأصلا ريال السودان وحال السوق اللي كسرتين كي هذانا وحن سوق جار ضمتين كي ولا ما كتير هل كان وحن كسوق اللي أب ألف كي وأصلا ريال السودان سيسكون الله أمر هيب الله آخريه وأكو حق دونا الألف كي سير الله آخرنا هيو ألف دار كي بقى سوق جالي وده شلي تقاني إن كان يهي هذا كان أو تغني كان هو هذا كان تغني با كان هو با كان ده تغني تا كان هو تا من الله وين كل وين ما كفهمتها أوكي حاجة القرآن قصة قرانية سأفهم الدونا وإذا هذا الوقت إن شاء الله نقدم صلاة قدسنا إن شاء الله
marka waa jumlooyin baa meesha soo galaya waxyaalaha quraanka soo galo anoo qaladka aan u baranay ama aan ugu dhawaaqno bay meelahan qaar ka mid yihiin sida loogu dhawaaqa waxyaalahan maxay calaamooyinkan yihiin maxaa aamusan maxaa la muujiya oo sheegi doona insha Allah meel kasto underline ku yaalo macnaheedu waxay tahay macna ku jira si uu qoranta looma dhawaaqo say u qoran tahay ma loogu dhawaaqo ka socon doona insha Allah waxa ku xigi doona shadka muxuu qabtaa macallin baa leeyahay macallin shadka muxuu sameeyaa xaraf xoojiyaa buu yiri saamo taqanaadinku waa in la dhahaa shadada xarafka laba ka dhigtaa mid korna waa reeban yahay ka dambeena waa calaamo shaqal buu haystaa ka sii gudub halkan waxaan ka baran doonaa wax loo yaqaano shamsiya iyo qamariya maxay yihiin halkan aan ku sharaxaysa laba tabeer baa loo sameeyay oo iska soo horjeeda si loogu dhawaaqaa maxay kala duwan yihiin oo ku sheegi doonaa insha Allah halkan waxa la soo dhaxqasay shamsiya qamariyadii si loo arko qofkaan ay beewada ma iska hadlaya mise wixiisu waa professional ma yaqaana waxa ku xigi doona calaamooyinka qaar kitaabka soo gala iyo maxaa loola jeedaa wuxuu leeyahay hadaa kan aragto kaasu la mid yahay hadaa kan aragto wuxuu leeyahay ka kala mid noqon doona okay farsaamo waxa laga yaabaa inaad kitaab boqolaal jeer ku aragtid calaamad saan u qoran laakiin maxaa loola jeedaa saan loola jeedaa si loogu dhawaaqo waa different yes macallinka la raayo inuu dadka baro kasi gudub halkan waxa ku yaala qayb ka mid ah laba sukuun isku yimaadaan see laba sukuun isku iman karaan ama laba reeb waa su'aal daaweyn laakiin waa lagu sheegi doonaa insha Allah example ka siin doona halkaas aan ku dhamaanaya hikaada inta wax ka bilaabi doona ducooyin buuga ducooyinkaas uu wataa oo duco badankeeda ku horqotan waxa loo isticmaalay xilliga la akhrinayo xilliga marka weesa qaatid halkan ataxiyaadkii baa ku qoran oo dib badan naga haysto aan rabno ilmaha inaan barno iyo dadka hikaada qorinin ayagoon wali hikaada baranin si daradeed waxa loogu hoos qoray English Quraanka English ma qori kara khatar waa macallinkii Quraanka English qora faraha la garaacaya laakiin waxyaalaha ducooyinka iyo iska firiye xadiis iyo ugu qorqorha laakiin Quraanka badalin marka taxiyaadkii baa inta ugu qoran waa ku soo laaban doona insha Allah ducooyin kala badan baa ku yaala halkaan ku qoran arkaanul islaamka ku yaala arkaanul iimaan baa ku yaala dhowr suuro Quraan ku yaala halkaas ku dhamaanaya marka buugaas aan idin dul maray waa buuga kaliya u qoran si Quraanka u qoran yahay waa yari xajminta uu leeyahay waxyaalo fara badan oo ku jira oo u baahan in la sharaxo baan dib ugu laabanaya saacad ilaa saacad barbu noqonaya hadaa macallin tahay waa u baahan tahay hadaa waalid tahay waa u baahan tahay hadaa arday ma Quraanka baranayay waa u baahan tahay hadihin wallahi waa dheer ma fiirsan karo hal saac soconaya time oo dugsi baan dhigaa dugsiga akhi laga faa'iideynaya sama ودا والدتهاي نفتها ilmaha faa'iideynaysa laakiin inaad ilma adaad macallin tahay ilma quraan u dhigtid bari markuu madrasa kala tago alif garan waayo khiyaano weeyaan ilmaha in la baro ama dadka la baro buug aan quraan si qorin u qornayn wallahi khiyaano kala weeyaan hadaa ilma ii keenatid ku dhaw Ingiriis ku baraya oo af Soomaali ku baro lacagna ka qata waa khiyaano Soomaan taasa maanta haysata aan bedelno sheekadaas hal la sameeyo waxa la jaan qaadaya quraanka حتى هذا بوغان هلينين أما وسكسو جارين بوغت كله كجوجي قرآن كده زي هذا خبر قرآن كده خبر لكن بوغ عربي الله ترى قرآن بريا برنا إنه قرآن كآخريانه شيخ من الله وحيانا يا اتق الله إلهي خبر لا يتاكو قاطعنا ولا يسحر الغنين محايا لي خيانة فجرته هذه هالحرف كام مقينة هاي وحلا كم مقص سمع سيادة رادد قفكي مالين طبعا هيستي وأن مالين شرع لسعنين ما أنت ولا صعون كرا هذا شرع إنترنت شيء ما إنترنت بجرا هذا شرع بوق له ما أنت بوق بهلي كرتا هذا شرع بعديه كنا ما أنت مقالة كناش وحرمنا المها مساكين تا أو لعيت اللوجا قادنا يو إن بوجاج عن قرآن هلا كان قادين لبرو برينا هو يعب مساكين اللي المها ترتن جيسو قرآن كوي قنانة أما مدرسة كلا تلقي ألف جروا يو حباره كصاحب بارتاي ترى آخرك هارميس سمع دين إلى ربنا سبحانه وتعالى دي بوحنا والله من دوانا مكان إن شاء الله إن بوج الشرح هذا from beginning to end أنت هرجع بوها أنا الشغل وحيالي ما أنت عندك خيري هل baan u dul istaagi doonaa sidaa daraadeed intaan ka arki doonaa insha Allah magac buugan dib ugu laaban doonaa